السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena galabnimo waa galabnimo jimca mar kale waxaan idin leeyahay jimca mubaarak. hadaba taariikhdu waxay ku beegan tahay 29 Agoosto sanadka 2025. barnaamijkuna waa kii labaad barnaamijyada aynu maanta oo jimca idinkugu talagalnay. qodobada barnaamijkan idinkugu soo gudbinayo waxaa ka mid ah turkiga oo hanjabaad culus u diray Israa'iil. haddaba hanjabaadani maxay kaga duwan tahay hadaladii hore ee Turkiga? tafaasiil ku saabsan wararkii ugu dambeeyay xiisadda ka dhex aloosan Turkiga iyo Israa'iil barnaamijkan ku faahfaahin doona. waxaa soo kale barnaamijkan idinkugu hayaa caalamka oo falcelin ka sameynaya ay ku diidan yihiin tallaabada Mareykanka uu fiisaha ugu diiday inay Mareykanka galaan wafdiga Falastiiniyiinta uu hogaaminayo Maxamuud Cabbaas si ay shirka qaramada midoobay ee loo dhan yahay ay uga qayb galaan, halkaas oo aqoonsiyo Falastiin loogu sameyn lahaa. Israa'iil oo soo dhaweysay tallaabada Mareykanka uu qaaday. haddaba tafaasiil ku saabsan arrinkaas barnaamijka ayaan iyana ku faahfaahin doonaa. qaybaha dambe ee barnaamijkana waxaanu idinkugu haynaa Israa'iil oo xaqiijisay labadii mayd lafahoodii shalay ay la baxeen baaritaan markii ay ku sameeyeen kadib inay labaduba noqdeen maxaabiistii ka maqnayd Israa'iil oo ay muddo raadinayeen. haddaba tafaasiilsha wararkaas ugu dambeeyay ee soo kordhay iyo guud ahaan xaaladda Gaza barnaamijka ayaanu ku faahfaahinaynaa inta aan ku jirno. kulanti wanaagsan markale asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeennii galabnimo. waa barnaamijkii labaad, maantana waa jimce. barnaamijka dhowr qodob ayaanu ku soo gudbin doonaa oo dhammaantood ah wararkii soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnayn. haddaba qodobada barnaamijka aan idinkugu hayo intaynaan u guda gelin waxaan idin xusuusinayaa maanta inay tahay maalin jimco ah. jimcahana janalkeena kale ee qisooyinka Nadaara 2 waxaa caado u ah inaanu kasoo gudbino qiso cusub maalinta Talaadada iyo maalinta Jimcaha. haddaba qisadaas maanta aad bay cajiib u tahay, waxaana hubaa dadka qisooyinka jecel inay si weyn halkaa uga faa'iideysan doonaan. haddaba qisadaas ayaanu soo gudbinay oo aan halkan idinkala socodsiinaynay. barnaamijkeena ayaan gelaynaa, waxaynu ku bilaabaynaa Turkiga iyo Israa'iil xaaladooda oo la sheegay in warar cusub ay ka soo kordheen. haddaba telefishinka Al Jazeera ayaa goordhow wuxuu daabacay warbixin uu leeyahay Turkiga wuxuu soo bandhigay tallaabooyin cusub oo ka dhan ah Israa'iil, iyadoo Israa'iil la sheegay inay wado weerarada ay doonayso inay ku qabsato marinka Gaza. haddaba warbixintu markaa way sii socotay. waxaa la leeyahay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan ayaa jimcaha maanta ah ka hadlay tallaabooyin xiriir ah oo dalkiisa uu ka qaadayo Israa'iil marka la eego dagaalka iyo xasuuqa iyo gaajaysiinta ay ka wado Israa'iil marinka Gaza. waxa uu ku celceliyay Turkiga inay markaa qorsheynayaan inay ka hortagaan dhibaatada lagu hayo reer Gaza hadday tahay barakicinta Falastiiniyiinta marinka ku nool. waxaana uu carabka ku adkeeyay in iska caabinta Falastiiniyiintu ay wax ka bedeli doonaan habka taariikhiga ee hadda taagan. kalfadhi degdega oo uu yeeshay baarlamaanka Turkiga oo looga hadlayay xasuuqa Israa'iil ay ka wado magaalada Gaza ayaa Hakan Fidan waxa uu yidhi gabi ahaanba waanu ka jarnay ganacsigii aan la lahayn Israa'iil. waxaanu xirnay dekadaheena. maraakiibta Israa'iil u kala gooshaysana oo halkan soo maraysa ma aqbali doono in ay markaa halkan soo maraan. maraakiibta Turkigu uu leeyahayna waxa uu sheegay inaysan u shiraacan doonin dhanka dekadaha Israa'iil. waxa uu intaa ku daray Turkigu inaanu ogolayn in maraakiibta hubka sida ee Israa'iil loogu tuhmayo inay u socdaan ay soo galaan dekadaha Turkiga. ma ogolaan doono ayuu yiri dhanka kale diyaaradahoodu inay markaa isticmaalaan hawadeena. marka wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga dhowr arrimood oo muhiim ah ayaa hadalkiisa laga noodgariyay. maxaa ka cusub Turkiga hanjabaadahan uu jeediyay? wax cusub ma ku jiraan mise horay wixii loo sheegi jiray waaye? su-aashaasaa marka taala oo la isweydiinaya.
marka waxaa soo kale la leeyahay maraakiibta turkidu ma aadi karto xagga marka xoogaa dadka wax falanqaynaya qolo walba sibay u fasiraysaa waxbaa maaragtay ku jiray leeyihiin laakiin waxaa cusub oo hadda kusoo kordhay keliya diyaaradaha israa'iil hawada turkiga ma isticmaali karaan weliba kuwa hubka iyo waxyaabahan iyo ay isticmaalaya oo markaa israa'iil u wadaa marka sheekooyinkan marka weli wax badana isku hoos jiraa la leeyahay marka xamaasa war soo saartay isla maanta markii warbixintan ay soo baxday waxay ugu baaqday turkiga inuu adkeeyo kana dhabeeyo waxyaabaha ku saabsan taageerada uu la garab taagan yahay reer gaza uuna meel walba iyo dhib kasta uu u geysan karo israa'iil uu u geysto uuna maaragtay ku ciqaabo dhibaatada ay falastiiniyiinta ku hayaan marka sheekada turkiga marka halkaasay maraysaa kollay adinkuna waxay tafaasiil iyo fakar iyo aragti ah ka qabtaan turkiga sheekooyinkan uu sheegayo hadda wasiirka arrimaha dibadda oo baarlamaanka la hadlayay bal adinkuna fakarkiina iyo aragtidiina ka dhiibta qodobkaa halkaas aynu kaga gudbaynaa qodob kale oo isaguna aad adduunka uga hadlaya jira hadda maraykanku waxay fiisooyinkii ka joojiyeen maamulkii falastiiniyiinta maxamuud cabbaas iyo wafdigiisa oo sebtembar shirka qaramada midoobay ka qaybgeli lahaa shirka sanadkan waa muhiim dowlado badan ayaa sebtembar qaramada midoobay waxay doonayeen inay ku aqoonsadaan falastiin marka waxay ahayd inay fadhiso meesha marka aqoonsiga iyo waxa kan iyo meesha ka dhacayaan fantasiyo iyo alaabaa dhacaysa meesha dowlado badan oo ballan qaadaa jira inay aqoonsanayaan sheekadaasu halkaasay maraysay waa taa idiin sheegay wasiirkii arrimaha dibadda ee israa'iil inuu maraykanka soo aaday wasiirka arrimaha dibadda maraykanka yiri arrintaas si aan uga hortegi karno bal waxaan ka qaban karno aan ka qabanno halkaan idinkugu sharaxay muxuu sameeyey marka kii maraykanka kow fiisooyinka nimankaan ka joojiyey faransiis iyo lagama joojin karo mugta iyo sacuudiga iyo howlahan wada qaramada midoobay waxaa laga joojiyey nimankii marka falastiiniyiinta ah marka israa'iiliintu waxay leeyihiin maraykanku uu ku mahadsan yahay tallaabada uu qaaday marka nimankan falastiiniyiinta marka halkaasaa marka lagu joojiyey maxaa marka loo joojiyey sababtaasa loo joojiyey maxamuud cabbaas iyo wafdigiisu sanad walba way aadi jireen oo qaramada midoobay way ka qaybgeli jireen new york ay tegi jireen haddaba markaan idin tuso wararkii ugu waaweynaa sheekada laga qoray aljaziira waxay leedahay maraykanku wuxuu mamnuucay abu maazin oo ah madaxweynaha falastiiniyiinta maxamuud cabbaas abu maazin iyo diblomaasiyiin falastiiniyiin ah inay galaan dhulkiisa kanaalka liraa 12 ee israa'iiliyiintu ay leeyihiin ayaa wuxuu sheegay barak ravet oo ah wariye ka tirsan kanaalkaas in maraykanka uu ka mamnuucay diblomaasiyiinta falastiiniyiinta oo uu ku jiro madaxweynaha maamulka falastiiniyiinta maxamuud cabbaas abu maazin inay ka qaybgalaan shirka loo dhan yahay qaramada midoobay ee ka dhacaya magaalada new york dhanka kale warbixin kale ayaa soo baxday laleeyahay washington waxay joojisay fiisooyinkii xubnaha maamulka falastiiniyiinta wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka wasiirkeeda arrimaha dibadda mark robio ayaa go-aan ku saabsan arrinkaas soo saaray diidmada in fiisaha loo diiday falastiiniyiinta ka hor kulanka loo dhan yahay ee qaramada midoobay wax la yaab la waayo dowladaha qaara marka waxay ku doodayaan waxay leeyihiin qaramada midoobay uu ninkan u socday uma socon maraykan cidda uu martida u ahaa waa al-umam almutaxida qaramada midoobay waaye un-ku ninkan aa u socday maraykan marka qaramada midoobay waddankayga ku taallaa magaalada new york qofkaan rabana wuu imaanaa qofkii rabana ma imaanayo sheekadu marka sidaa hadday noqoto marka dee qaramada midoobay waa inay dib isugu laabataa oo meel kale loo soo rartaa ilii dadaa doodaas qaba oo qaylinaya marka waana wax la yaab leh waxay leeyihiin maxaa loogu diidayaa ninkan qaramada midoobay shirkeediyaa laga casuumay marka qaramada midoobay sababta maxay tahay maraykanku marka sabab kale ma hayaan ay leeyihiin ururka uu hogaamiyey PLO la yiraahdo ee falastiiniyiinta waa looga shakiyay urur argagixisa iyo waxaas waxaa ninka maar kastoo imaan jiree meesha argagixisa ma jirtee sidee wax u jiraan marka meeshaan maraykanka waxawaaye wixiisa la jiifiyaana bannaan la joojiyaana bannaan ma maqli jirta waxaan rabaan samaynaa waaye
marka dadkiina xataa meesha joogo hadda imaana ninkaan rabo waa ka joojin karaa waa New York ma idinka iska leh anaa iska leh fiisa ayaa dhiiba Mareykan waa laga joojinaa ninkii su'aala shakadaas taagan adduunka yaabaa ka socda bal waa arki doonaa idinkuna fakarkiina iyo aragtidiina qaybihii dambe barnaamijka ayaa noo soo socda oo ku saabsan wararkii ugu dambeeyay Gaza laakiin qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka ayaynu maraynaa galabtana waa Jimce waxaan ilaahay Jimca mubaarak haddaba qaybtan waxaynu ku faahfaahinaynaa shalay waxaan halkan idinkaga sheegay in Israa'iil ciidankeeda Gaza ay kala soo baxeen meydad dhintay lafahoodii oo laba ah waxay yiraahdeen waa baaritaan ku sameeynaa baaritaankii marka waxay cadeeyeen la leeyahay labaduba inay ahaayeen meydadkii laga haystay ee ka maqnaa oo ay raadinayeen marka mid sawirkiisa magaciisa waa la sheegay kan kale laakiin wali wax wara laga mahayo haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay Israa'iil waxay sheegtay inay soo ceshatay laba kamid ah dadkii laga haystay meydadkooda magaalada Gaza way cadeysay haddaba warbixintu way sii socotay ciidanka Israa'iil maanta oo Jimcaha waxay ku dhawaaqeen inay u suura gashay soo celishada ninka dhintay mar hore ee lafiisa la soo helay waxa la yiraahdaa Faiz 55 sano jir kaasoo la sheegay inuu kamid ahaa dadkii muqaawamada islaamiga Hamas ay ka soo afduubatay markii 7 Oktoobar 2023 ahaa dagaalkii Duufaan al-Aqsa ee lagu qaaday gudaha Israa'iil 12 kanaalka la leeyahay wuxuu sheegay howlgal gaar ah oo shalay ay sameeyeen ciidamadu inay ku galeen meelo kamid ah Gaza oo ay ku soo furteen labada lafaha meydadkooda waxaana ilaa hadda la cadeeyay ninka la yiraahdo Faiz oo ninka ay soo saareen sawirkiisa iyo magaciisa waxaana soo kale la sheegayaa in ninka kale lagu sheegay kaliya inuu isaguna maxbuus ah laakiin aan tafaasiil badan laga bixin xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu waxa uu ku tilmaamay howlgalkaas inuu qayb ka yahay dadaalada ay dawladdu wado oo ah sidii loo soo celin lahaa maxaabiista nool iyo kuwa dhintay ee ku jira gacanta Hamas waayay warkaas markaa halkaas aan kaga gudbayna xaaladda guud Gaza maanta way degan tahay wax dhiba ma jiraan barnaamijkeygii kan ka horeeyay subaxnimo waa ogeydeen warbixin faahfaahsan inay dhowr jeer isku dayeen Gaza inay soo weeraraan laakiin nagta laga saaray oo ay carareen marka ma jiro wax tafaasiil ah oo inta ka badan oo soo kordhay marka waxaan idin xusuusinayaa kanaalkeena kale qisooyinka nadaara laba maanta waa Jimce qisadaas hal ugu feesteeyo waxaan soo dhigi doonaa qaybta fariimaha ama commentiska fariinta ugu koreyso meeshii ziyaarada ku dhufan jirteen ninkii raba inuu qisada daawado halkaas ayuu ku dhufanayaa inta aan mar kale kulmayno barnaamijka la gareeyo oo share gareeyo asxaabay nabadgelyo